Mikel Arteta ayaa shaaca ka qaaday inaysan jirin wax dhaawacyo cusub ah oo soo wajahay kooxdiisa ka hor kulanka weyn ee ay Arsenal la ciyaari doonto caawa Manchester City horyaalka Premier League. Gunners ayaa doonaysa in ay sii dheeraysato hogaanka horyaalka iyadoo hadda 6 dhibcood ku haysa kadib markii ay guul ka gaadhay kooxdii difaacanaysa horyaalka. Erling Haaland ayaa ka soo qayb galay tababarkii City galabnimadii Talaadada kadib markii Pep Guardiola uu qirtay inuusan ogeyn in gooldhaliyaha ugu sareeya Premier League uu taam u yahay kulanka. Haaland ayaa garoonka laga saaray qaybtii nasashada kulankii ee City guusha ka gaartay Aston Villa isbuucan kadib markii uu soo gaaray dhaawac boodada ah. Arteta ayaa sidoo kale bixiyay war cusub oo ku saabsan baxnaaninta Gabriel Jesus kadib dhaawac jilibka ah oo ka soo gaaray intii uu ku guda jiray waajibaadka xulkiisa Brazil ee koobkii adduunka ee Qatar. Haddaba waxaan halkan ku qaadaa dhigaynaa dhammaan wararkii ugu dambeeyay ee dhaawacyada aan ka helnay garoonka Emirates. Aynu ku bilaabno Emil Smith Rowe. Dhaawac gumaarka ayaa dhibay xilli ciyaareedka Smith Rowe ilaa iyo hadda iyadoo 22 jirkan uu kaliya saftay 5 kulan oo Premier League ah tan iyo markuu bilaabay xilli ciyaareedkan. Kubad sameeyahan tayada badan ayaa ku soo laabtay isagoo bedel ku yimid kulamadii Tottenham iyo Oxford United laakiin waxa uu seegay kulankii FA Cup-ka ee Manchester City. Laacibka khadka dhexe ayaa ku soo laabtay tababarka maalmihii ugu dambeeyay si kastaba ha ahaatee waa la arki doonaa haddii lagu soo dari doono maalinta ay la ciyaarayaan Man City. Waxa uu Arteta yiri kuwii muddada dheer dhaawaca ah sida Emil Reis iyo Gabi Jesus way soo dhow yihiin waxay bilaabeen inay wax qabtaan balse dibadda ayay joogaan laakiin weli diyaar uma aha inay wax ku biiriyaan balse xilliga ku soo laabashada garoonka ee Emil Smith Rowe ma cadda. Gabriel Jesus isagoo dhaawac ka soo gaaray seedaha intii uu u ciyaarayay Brazil kulankii Cameroon ee wareegga guruubyada koobka adduunka. Jesus ayaa ku soo laabtay London si uu qalin jilibka ah u galay iyadoo la filayo inuu garoomada ka maqnaan doono ugu yaraan bil kale. Isagoo ka hadlayay Emirates Stadium bishii hore Jesus wuxuu qirtay inuu rajaynayo inuu ku soo laabto garoonka 4 ilaa 5 toddobaad gudahooda balse Arbacadii 1 Febraayo 25 sano jirkan ayaa soo saaray war cusub oo ku saabsan xaaladiisa jirdhiska. Isagoo soo dhigay bartiisa Instagram-ka sawir uu dib ugu soo laabtay garoonka tababarka. Gabriel waxaa la filayaa inuu soo laabto bishan aan ku jirno Febraayo ama bisha kale ee Maarso 2023. Reis Nelson ilaa heerka uu gaarsiisan yahay dhaawaca muruqa ah Nelson ayaan la ogeyn iyadoo Arteta uu qirtay kadib ciyaartii saaxiibtinimo ee Juventus bishii December inay dhibaato noqon karto dhaawaca Nelson. Warbixin ayaa sheegaysa in Nelson uu soo dhigay Instagram-kiisa sawir isagoo ku ordaya mashiinka lagu ordo ee treadmill. 23 jirkan ayaa ku soo laabtay tababarka laakiin waxa uu seegay kulankii toddobaadkan. Si kastaba ha ahaatee waxa uu dib ugu soo laaban karaa kooxda Gunners 15 Febraayo ee maanta oo ay la kulmayaan Man City. Mohamed Elneny ayaa ku soo bilowday kulankii FA Cup-ka ee ay ka badiyeen Oxford United wuxuuna ciyaaray 90 daqiiqo ee ciyaarta. Laakiin xiddiga reer Masar ayaa ka maqnaa kooxdii Arteta ee 2-0 kaga badiyay Tottenham iyadoo dhibaato dhanka jilibka ah oo ka soo gaaray tababarka. Warbixin ay soo saartay kooxda toddobaadkii hore ayaa lagu xaqiijiyay in ciyaaryahankii hore ee Basel uu garoomada ka maqnaan doono muddo dheer inkastoo aan la shaacin waqtiga la filayo inuu soo laabto. Kadib dhaawac ka soo gaaray tababarkii ugu dambeeyay, qiimeyntii xigtay ayaa xaqiijisay in Mohamed Elneny uu dhaawac weyn ka qabo jilibka midig. Mohamed Elneny waxa uu ku guuleystay qaliinkii lagu sameeyay waxaana uu maqnaan doonaa muddo dheer. Akhbaartiisa oo faahfaahsan ayaa la sheegi doonaa marka la dhammaystiro marxaladaha hore ee baxnaanintiisa.